xarunta koonkeena ma jirto. Fiisigiste ayaa sharaxay sababta. Qiyaastii qarni ka hor, saynisyahanadu waxa ay ku dadaalayeen sidii ay u heshiin lahaayeen waxa u muuqday inay iska hor imanayaan aragtida Albert Einstein ee isu xidhka guud. Haddii aad jeceshahay warbixinta noocaan ah, fadlan guji badhanka subscribe si aad u hesho warbixin badan. Waad ku mahadsan tahay dhegaysiga. Ha iloobin inaad nagu soo biirto. Waxaa la daabacay 1915kii oo ay horay u aqbaleen caalamkoo dhan physicists iyo mathematicians. Aragtidu waxay u qaadatay in caalamku uu yahay mid taagan, aan isbeddelin, aan dhaqaaqin oo aan isbeddelayn. Marka la soo koobo, Einstein waxa uu rumaysnaa in cabbirka iyo qaabka koonku maanta uu yahay in ka badan ama ka yar isla cabbirka iyo qaabka uu weligood ahaan jiray. Laakiin markii irbixiyayaashu ay eegeen irka habeenkii iyagoo jooga galaxyo fog oo leh telescopes xooggan, waxay arkeen tilmaamo caalamku yahay wax aan ahayn. Aragtiyadan cusubi waxay soo jeediyeen liddi ku ah inay ahayd halkii sii ballaarinaysay. Saynisyahanadu isla markiiba waxay xaqiiqsadeen in aragtida Einstein aysan dhab ahaantii oo dhan caalamka waa inuu ahaado mid taagan. Aragtida ayaa sidoo kale taageeri karta caalamka sii fidaya. Runtii, iyaga oo isticmaalaya isla qalab xisaabeed oo ay bixisay aragtida Einstein, saynisyahanadu waxa ay abuureen noocyo cusub oo muujinaya in caalamku dhab ahaantii firfircoon yahay oo horumarayo. 10 sano ayaan isku dayay in aan fahmo isku xirnaanta guud oo ay ku jirto shaqadayda hadda ee Professor Fiisigiska ah oo waxbarya maadada. Waan ogahay in madaxaaga lagu duuduubo fikradda caalamku balaarsigu ay dareemi karto cabsi iyo qayb ka mid ah caqabada ayaa meesha ka saaraysa dareenkaaga dabiiciga ah ee ku saabsan sida arrimuhu u shaqeeyaan. Tusaale ahaan, way adag tahay in la qiyaaso shay la mid ah sida caalamku aanu xarun u lahayn haba yaraatee, laakiin fiisigiska waxa uu leeyahay taasi waa xaqiiqda. Caalamku wuu sii weynaadaa maalin kasta. Meesha u dhaxaysa galaxyada. Marka hore, aan qeexno waxa loola jeedo ballaarinta. Dhulka, kordhinta macnaheedu waa wax ayaa sii weynaanaya. Oo marka la eego caalamka, taasi waa run, nooc ka mid ah. Ballaarinta waxa kale oo laga yaabaa inay la macno tahay, wax walba way naga sii fogaanayaan, taas oo sidoo kale run ah marka la eego caalamka. Ku tilmaan telescopeka fog ee galaxyada fog waxayna dhammaantood u muuqdaan inay naga sii fogaanayaan. Intaa waxaa dheer, inta ay fogaanayaan, dhaqso ayay u muuqdaan inay socdaan. Waxa kale oo aad moodaa in galaxyadaas midba midka kale kasii fogaanayo. Marka waxa aad u saxsan in la yidhaahdo wax kasta oo koonka ku jira ayaa kasii fogaanaya wax kasta oo kale hal mar. Fikirkan waa mid dahsoon balse muhiim ah. Way fududahay in laga fikiro abuurista caalamka sida rashka qarxinta, ku bilow Bang weyn, kadibna dhammaan galaxyada caalamka waxay u duulaan jiho kasta oo ka soo jeeda barta dhexe. Laakiin isbarbardhiggaas sax maaha. Ma aha oo kaliya inay si been abuur ah u tilmaamayso in fidinta caalamku uu ka bilaabmay meel keliya, taas oo aan samayn, laakiin sidoo kale waxay soo jeedinaysaa in galaxyas ay yihiin waxyaalaha socda, taas oo aan ahayn mid sax ah. Ma aha wax aad u badan oo galaxyada midba midka kale ka fogaanayo, waa bannaanka u dhexeeya galaxyada, darka koonka laftiisa, kaas oo sii kordhaya mar kasta oo wakhtigu socdo. Si kale haddii loo dhigo, runtii ma aha galaxyada laftooda kuwa u wareegaya caalamka, waxaa ka sii badan in caalamku laftiisa uu iyaga ka sii fogeeyo marka uu sii fidayo. Isku ekaanshaha guud waa in la qiyaaso in lagu dejiyo dhibcaha qaar ka mid ah dusha sare ee buufinta. Markaad hawada ku afuufo buufinta, way sii fidaysaa. Sababtoo ah dhibcuhu waxay ku dheggan yihiin dusha sare ee buufinta, way sii kala fogaanayaan. Inkasta oo laga yaabo inay u muuqdaan inay dhaqaaqaan, dhibcuhu waxay si sax ah u joogaan meesha aad dhigto, iyo masaafada u dhaxaysa iyaga ayaa si fudud u sii weynaan doonta fidinta buufinka. Shaashad kala qaybsantay oo ah buufin cagaaran oo leh dhibco guduudan oo dusha sare leh, si khafiif ah loo buufiyey kadibna aad u badan oo la afuufay. Waa meesha bannaan ee u dhaxaysa dhibcaha ka soo koraya. NASA Gibel Altet AB. Hadda ka fikir dhibcaha sida galaxyas iyo biibile sida dunta caalamka, oo waxaad bilaabaysaa inaad hesho sawirka. Nasiib darro, in kasta oo isbarbardhigani uu yahay bilow wanaagsan, haddana si sax ah uma helo tafaasiisha. Cabbirka 4 aad. Isbarbardhig kasta oo muhiim ah ayaa ah fahamka xadidaadiisa. Qaar ka mid ah cilladaha waa cad yihiin, buufisku wuu yar yahay oo ku habboon gacantaada, maaha sidaas caalamka. Cillad kale ayaa ka sii qarsoon. Buufinku waxa uu leeyahay 2 qaybood, oogada injirka iyo gudaha oo hawo ka buuxo. Labadan qaybood ee buufinta ayaa si kala duwan loogu sifeeyey luqadda xisaabta. Dusha sare ee buufinku waa 2 cabbir. Haddii aad ku dul wareegayso, hore, gadaal, bidix ama midig ayaad u socon kartaa, laakiin kor iyo hoos uma dhaqaaqi kartid adigoon dusha ka tagin. Hadda waxaa laga yaabaa inay u ekaato inaan halkan ku magacaabayno 4 jiho, hore, gadaal, bidix iyo midig, laakiin kuwani waa dhaqdhaqaaqyo 2 waddo oo aasaasi ah, dhinac ilaa dhinac iyo hore iyo gadaal. Taasi waa waxa dusha ka dhigaya 2 cabbir, dhererka iyo ballaca.
Gudaha buufinku, dhinaca kale, waa 3 cabbir, markaa waxaad awoodi doontaa inaad si xor ah u dhaqaaqdo jiho kasta, oo ay ku jiraan kor ama hoos, dhererka, ballaca iyo dhererka. Waa halka jahawareerku ka jiro. Shayga aan ka fikirno waa inter ee buufinku waa barmeel gudaha ah, oo ku taal bannaanka hawada ka buuxo ee hoostiisa. Laakiin marka la eego isbarbardhiggan, caalamku waxa uu aad ugu eg yahay oogada injirka ee buufinta. Gudaha biibiile ee hawo ka buuxo malaha wax u dhigma koonkeena, markaa ma isticmaali karno qaybtaas isbarbardhiga kaliya arrimaha dusha sare. Marka la weydiiyo, away xaruntii caalamku, waxa ay la mid tahay in la weydiiyo, away badtamihii dusha buufinta. Si fudud ma jiro mid. Waxaad u safri kartaa dusha sare ee buufinta jiha kasta, ilaa iyo inta aad rabto, weligaa marna ma gaadhi doontid meel aad u wacdo xarunteeda sababtoo ah weligaa kama bixi doontid dusha sare. Si la mid ah, waxaad u safri kartaa jiho kasta oo caalamka ah, oo weligaa ma heli doontid xarunteeda sababtoo ah, sida dusha sare ee buufinta, si fudud ma haysto. Qayb ka mid ah sababaha ay tani u noqon karto mid aad u adag in la fahmo waa sababta oo ah sida caalamka loogu qeexay luqadda xisaabta. Dusha sare ee buufinku waxa uu leeyahay 2 cabbir, gudaha buufinku waxa uu leeyahay 3, laakiin caalamku waxa uu ka jiraa 4 cabbir. Sababtoo ah ma aha oo kaliya sida arrimuhu u guuraan meel bannaan, laakiin sida ay u guuraan wakhtiga. Maskaxdeenna waxay ku xiran tahay inay si gooni ah uga fikiraan booska iyo wakhtiga. Laakiin caalamka dhexdiisa waxa ay isku xidhan yihiin hal maro, oo loo yaqaan spaetime. Midowgaasi waxa uu bedelayaa habka uu caalamku u shaqeeyo marka loo eego waxa dareenkeena uu filayo. Sharaxaadani xitaa ma bilaabayso inay ka jawaabto su'aasha ah sida ay wax u sii ballaarin karaan si aan xad lahayn. Saynisyahanadu waxay weli isku dayayaan inay ka fikiraan waxa awood u leh ballaarintan. Marka weydiinta ku saabsan udubdhexaadka caalamka, waxaan wajahaynaa xadka maskaxdeena. Jawaabta aan helayno, wax walba, meel walba ku fidsan, hal mar, waa muuqaal muujinaya sida quruxda badan ee koonkeenu u yahay. Wadahadalka.